maanta dawladihii waaweynaa ee gobolka bariga dhexe waa isbeeninayaan. dawladda la yiraahdo Pakistan waxay leedahay heshiis ayaa laga gaaray gobolka bariga dhexe ee colaadii taagnayd. 60 maalin oo xabad joojina ayaa miiska saaran oo dhinacyadu ay isla garteen. waxana uu qayb ka yahay baaliri is-afgaradkii Islaamabad. laakiin dawladda Iran warkaasi gaashaanka ay ku dhufatay waxana ay leedahay waxba kama jiraan ilaa iyo haddana Mareykanka waxaan isla garanay oo meel yaala ma jiraan. haddaba yaa gar leh ma dawladda Pakistan oo dhaxdhaxaadiya ah ma dawladda Iran oo dhaka cusub ciyaaraysa mise Mareykanka oo biyaha hoostiisa ku jira oo Pakistan isticmaalaya. arrintan maxay salka ku haysaa maxaysa u deedan tahay dawladda Iran in xabad joojin kale oo 60 maalin la qaato. warbaan halkaas idinka sheegi doonaa waxay u muuqataa dawladda Iran in ay faantay in la yiraahdo heshiis ila gal kadibna hub loo soo rarto oo marka baqaarada loo buuxsado la yiraahdo diyaar garow ku garaacaya nagtana laga gasho. marka waxay leeyihiin wax heshiis la gaaray ama la isla afgartay oo hadda jira ma jiraan. waan eegi doonaa qodobkaasi. dawladda Saudi Arabia ahayd waxa ay xuutiyiinta u fakataba warqad sira ayaa la helay. waxay leeyihiin saaxiibayaalow aan isdhaafno waxay soo gaaray waa igu filan yihiin maraakiibteedii cardaadiqada laga dhigay marinkii baabulmandab iyo qaliijkii cadan waa mari la ahay dekadii wadanka Sacuudiga ahaa bariday dhulka ku dhufteen oo wax dhaqdhaqaaq oo halkaasi ka jira malaha. dagaalka iga joojiya fariin ayaa loo gudbiyay saraakiisha kooxda xuutiga ee ku sugan magaalada Masqat ee caasimadda wadanka Oman. sidee wax u jiraan ninkeena Salmaan ahaa wuxuu iswaalaba miirka u soo laabtay. kooxda xuutiga waxay sidoo kale saaka gantaala ku garaaceen degada istiraatiijiga ee Muqal la yiraahdo oo kamid ah ilaha dhaqaale ee wadankaasi gaar ahaan ciidamada iyo dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay ku tiirsan yihiin. fariinta weerarkan waxay ka dhigan tahay bal Sacuudiga hayga keen celiyo Rashad Cilmiyow dhibaatooyinka aad geysateen waa lidaga aaraya. wararkan waliba waxa uu imaanayaa xilli saraakiisha ugu badnayd xuutiga looga dilay dagaaladii ugu dambeeyay oo ay qirasho adag sameeyeen. waan eegi doonaa qodobkaasina. dawladaha carabta sheekadooda waxay noqdeen dibigii caddaa kii casaa iyo kii madooba. waxaan arrintaasi uga jeedaa nimankii Israa'iil ahaa intii dagaalka Lubnaan lagu mashquulsanaa oo kii Gaza lagu mashquulsanaa oo kii Iran lagu mashquulsanaa dabaabaadkoodii iyo raadeeradoodii ugu weynaa ayay soo rarteen waxaana ay soo dhigteen xuduudaha wadanka Masar. markan waxay doonayaan dawladda Qaahira in war laga keeno. Sisi qudhiisa isna ma hawl yara sheekooyin kale oo la yaab la iyo ku dhaqaaqay maanta waxaanay u egtahay in aan la iscafin doonin oo haddii dagaallo u dhaxeeya Masar iyo Israa'iil ay bilowdaan xaalku waxa uu noqon doonaa mid baraka malaha ah. ciidamada Masar ee malaayiinta ah ma ku filan yihiin difaaca qarankooda. Israa'iil se ma awooda markan in ay Masar isku dhiriiriso maxaa shidaalinaya dagaalkan laga baqayo in uu gobolkaasi mar kale ku soo laabto. waan isla eegi doonaa. madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu qaaday tallaabo adag. ciidamadiisa dawladda military ay sameynayaan xilli NATO ay keebla Yurub tahay. ma quwadaha nuclearka ayaa markan isbeegsanaya muxuuse badweynta Pacifiga booqashada ciidamada iyo dawladda Putin oo halkaasi ay ku sameeyeen oo ku soo arkay. fariin noocee ah ayaa ku jirta. ikhtiyaarta in la socota taxliilkaas oo guud ahaan badul mari doona wararka caalamka siyaasadda iyo waliba diblomaasiyadda iyo dagaalka ayaan idin la wadaagi doonaa. laakiin su'aasha taagan maanta waxay tahay oo aad iyo aad ka muhiimka u ah dawladda Saudi Arabia ahayd waa isdhiibtay. xuutiga waxay leeyihiin saaxiibayaalow waqtigii aan dagaalamo lahayn lama joogo iga joojiya dagaalka aniga waa nin daar ku jira daruur ma arkay ilaa xalay roobkii baa daay haday sheekadu ahayd waa la bedelo waxa leeyahay nin daar miraayada ah ma qarsho ah ku jira dhagax tuur ma bilaabo. xuutiga waxay leeyihiin dagaalkii nabadda waa isugu kaymid. nimankii wadankan Masarna xuduudihiisa ayaaba raadaaro iyo gantaalo iyo diyaarado drones waxba la isaga soo rartay. wadankii Pakistan ahaa maanta waxa uu ku dhawaaqay in la gaaray heshiis kale oo cusub
oo dhaxmaray wadanka la yiraahdo Iran iyo waliba dawladda Mareykanka xabad joojintan waxay qayb ka tahay baa leeyahay 60 maalin oo kale oo dhinacyada ishayay ay isfahmayaan hasaate dawladda Iran ayaa durba hadalkaasi ka jawaabtay oo waxay leedahay warka Pakistan ay daldalaysa waxba kama jiraan iyadoo shalay Muhsin Naqvi wasiirka amuraha gudaha ee wadanka Pakistan uu gaaray gudaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian oo xalay u gudbiyay fariin xasaasi ahayd taasoo aad loo qarinayay lana sheegay in ay ka timid ra'iisul wasaare Mohammed Sabah Sharif iyo waliba taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadankaasi ninka loo yaqaan Rajul Dil ama ninka hooska oo la yiraahdo Aasim Munir oo kamid ah ragga ugu saameynta badan amniga iyo siyaasadda qaaradda Aasiya islamarkaana wadankaasi Pakistan aadka u hogaaminaya Mareykanka iyo Iran ayaa wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu News Agency ku waramaysa in la kordhiyay muddada xabad joojinta 60 maalmood taasoo qayb ka ah heshiiska loo yaqaanay Afgaradka Islamabad iyadoo muddada heshiiska ay hadda ku egtahay baa leeyahay 17 bisha Agoosto heshiiskii hore loo gaaray oo dhinacyadu ay sameeyeen hasaatee ujeedadu ay tahay in ay kor u sii qaadaan ila ka tirsan dawladda Pakistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Turkiga in labada dhinac ay ogolaashahooda u gudbiyeen dhaxdhaxaadiyaasha si loo kordhiyo muddada xabad joojinta labada dhinac waxay dhaxdhaxaadiyaasha u sheegeen inay ogol yihiin waqtiga kama dambaysta ah oo la kordhinayo iyagoo yiri ila ku dhow geedi socodka dhaxdhaxaadinta inay ku kalsoon yihiin si kastaba ahaatee labada dhinac ayaan wali isdhaafsan baa layiri fariimo ku saabsan muddada cusub ee xabad joojinta waxana wali aan la go'aamin inta maalmood ee lagu kordhin doono baa layiri heshiiskan oo hadda la qorsheynayo inuu 60 maalin yahay Pakistan door dhaxdhaxaadina ayay ka qaateen heshiiskan hasaatee war degdega oo ka soo baxay dawladda la yiraahdo Iran waxa ay ku tilmaameen warka ay sii daayeen wakaaladaha wararku inay yihiin kuwa been ah oo aan la qaadan karin ismarkaana ay u muuqdaan kuwa lagu marin habaabinaya xiisadda iyo colaadda gobolka bariga dhexe qobrada qaar Iran waxay ku eedeynayaan in ay fashilayso isku soo dhawaashiyo kasta halka Iran qobradu qaarkood ay leeyihiin waxay ka baqaysaa marka dagaalka xabad joojinta la qaato in dhinacyada kale ay hub iyo waliba gantaala soo rartaan taasoo dib dagaalka loogu abaabulayo waa farsamo nasasho ah ayaa la leeyahay oo dawladda Iran ay aad u fahansan tahay hadda warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in dawladda boqortooyada Saudi Arabia ay warqad sira u qortay kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen Sacuudiga waxa uu muuqanayaa in uu isdhiibay marka la fiiriyo xaaladda hadda ka taagan dagaalka marinka Baabul Mandab qaliishka Cadan iyo sidoo kale badda Carabta waxaanay hadda u muuqataa dagaalada inay yihiin kuwa dawladda Sacuudiga ay ka maagtay oo dhibaatooyin waaweyn ay ka soo gaareen wakaaladda wararka ee Iran ee Tasniim la yiraahdo ayaa sheegtay in dawladda Sacuudigu ay fariin qarsoodi ah u dirtay wafdi Xuutiyiin ee wada xaajoodka ka wada magaalada Masqat ee caasimadda wadanka Oman isagoo soo jeediyay in la soo afjaro colaadda Yemen dibna loogu bilaabo baa leeyahay heshiiska 2022 in dib loogu noqdo oo dhinacyadu ay ku joojiyaan dagaalkii hore u jiray sida ay Tasniim ka soo xigatay ilaa lagu sheegay inay ku dhow yihiin wafdiga Yemen ee wada xaajoodka afariinta Sacuudiga ayaa timay kadib weeraro ay Xuutiyiintu sheegeen inay ku qaadeen goobo ay leeyihiin ciidamada Sacuudiga iyo xulufadooda ku yaala gudaha wadanka Yemen warbixintu waxay sheegtay in Riyadh fariinteeda ay ku muujisay rabitaan ah in dagaalka la joojiyo dibna loogu laabtay heshiiskii 2022 ee u dhaxeeyay Sacuudiga iyo Sanca Xuutiyiinta waxa ay dalbanayaan damaanad iyo magdhow waxna ay leeyihiin Sacuudiga kama day doona dagaalka ilaa uu magdhowna siiyo samarkaana uu bixiyo damaanad qaad inaanu ku noqon doonin waxa uu hore u sameeyeen ciidamadiisu sida laga soo xigtay ilaa ay Tasniim xustay dhinaca Sacuudiga ayaa fariin Sanca u diray loo fasiray in ay tahay dib u noqosho ku timid mowqifkii Riyadh ee ugu dambeeyay Xuutiyiinta
ayaa la sheegay inay ku adkaysanayaan in loo baahan yahay damaanad isla markaana waxa ay dalbanayaan in la siiyo magdhow. dalabyada ilawareedyadu waxa ay tilmaamayaan in si buuxda loo qaado xanibaadka Yemen, in la bixiyo magdhow la siiyo dowladda Xuutiga iyo in la joojiyo faragelinta Sacuudiga ee arrimaha gudaha wadanka Yemen ay ku hayaan. ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo Sacuudiga ka soo baxay oo xaqiijinaya afarintan qarsoodiga ah ama beeninayaba. xiisada ayaa hadda u muuqatay inay aad kor ugu sii kacday marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan iyo waliba loolanka cusub hadda halka uu gaaray oo lagu tilmaamayo inay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu cuslaa uguna adkaa ee la soo wariyo in ay halkaasi ka taagan yihiin. dhinaca Xuutigana saaka waxa ay gantaalo baalistiga ku garaaceen dekada la yiraahdo Mukha oo ku taala gudaha wadanka Yemen, gacantana ay ku hayso dowladda Sanca ee caalamku aqoonsan yahay oo ay gardaadiyaan Sacuudiga iyo waliba dhinacyada Khaliijka iyagoo ka baqanaya faragelinta dowladda Iiraan ay ku hayso gudaha wadankaasi. maadaama Xuutigu ay gacanta ku hayaan caasimadda Sanca iyo gobollo muhiim ah oo istiraatiiji ah, dhinacyadan kale waxa ay ku fara adeegayeen sidii dowladda Rashaad al-Calami ay u noqon lahayd mid shaqaysa. ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in kooxda Xuutiga ay Arbacada maanta laba gantaal oo baalistiga ku weerareen dekada Al-Mukha oo ku taala xeebta galbeed ee Yemen, taas oo ka mid ah dekadaha muhiimka ah ee ku dhow marinka istiraatiijiga ah ee Badda Cas. ila military oo ka tirsan ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in labada gantaal ay ku dhaceen gudaha dekada isla markaana ay waxyeello gaarsiiyeen barxadda dekada ee qaar ka mid ah xarumaha howlgelinta. ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya oo sheegaya dhimasho ama dhaawac. weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii 9kii Agoosto lagu qaaday Al-Mukha iyo dekadeeda weerar xoog leh, isla markaana la sheegay in ay ku dhinteen 7 qof, 30 kalena ay ku dhaawacmeen. xiisada Badda Cas ayaa u muuqanaysa in marinka Baabilmandab inay hadda tahay mid aad u culus oo muujinaysa dhinacyada is haya in ay ka baqanayaan dagaalkan in uu sii ballaarto. dhinaca kale haddii aan eegana dowladda Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar ayaa wajahaysa qalqal weyn oo xoog leh iyadoo Israa'iil ay soo daabushay ciidamadii ugu tirada badnaa, qalabkii militariga, raadarada iyo diyaaradaha iswada oo ay keeneen xuduudda wadankaasi Masar. dhinacyada ayaa hore u gaaray heshiis ay ku kala saxiixdeen in ay nabad kala qaataan, haddana waxay u muuqanaysaa asaasaantan inay tahay mid gobolka Bariga Dhexe ku abuuri karaysa walwal iyo cabsi weyn oo dagaalka sii xoojinaysa haddii labadan wadan ee adag ay isku dhacaan sida ay tilmaamayaan khubaradu. xiisada ayaa laga dareemayaa xuduudda u dhaxaysa Masar iyo Israa'iil kadib markii warbaahinta Israa'iiliyiintu ay soo bandhigeen xog ku saabsan arrimaha dhismaha iyo howlgelinta goobo militari oo cusub oo Israa'iil ay ka samaysatay meel ku dhow xuduudda Masar. warbixin ay baahisay madal Israa'iili ah oo lagu magacaabo Natsif Net ayaa sheegtay in goobaha cusub aysan ahayn saldhigyo loogu talagalay weerar ka dhana Masar, balse ay yihiin xarumo tiknoolajiyadeed iyo kaabayaal amni oo qaybka isbedel ku yimid qaabkay Israa'iil u difaacayso xuduudeeda ayaa lagu yidhi arrintan, taasoo ka dhigan daandaansi Netanyahu uu ku doonayo nidaamkaasi dowladda Masar in uu goroda ku geliyo. sida warbixintu ay sheegayaan ugu yaraan 5 goobood oo cusub oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa lagu arkay sawirro dayax-gacmeed lagu qaaday xuduudda. qaar ka mid ah goobahaasi ayaa la sheegay in ay u jiraan 10 mitir oo kaliya xayndaabka xuduudda, iyadoo la sheegay in lagu arkay gaadiid gaashaaman iyo madaafiic xoog leh oo la jiidayo. ujeedada ma aha bay leedahay Israa'iil weerar inaan ku nahay Masar, laakiin waxaynu difaacaynaa xuduudkeena. madasha Israa'iiliga ayaa ku dooday in tallaabooyinkan ay tahay mid qorsho ka dhana aan ka dhahayn Masar, balse ay ka dhasheen baa layidhi walaacaysi soo taraya ee ku saabsan diyaaradaha iswada, tahriibinta hubka iyo waliba daroogada la gelinaya nidaamkooda. waa sida ay ku doodayaan Israa'iiliyiinta. warbixinada ayaa sheegaya in korarka isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu aad u batay, hase haatee tani ay tahay qorsho daandaansi ah marka la fiiriyo tallaabooyinka Israa'iiliyiintu ay qaadayaan.
sida warbixintu ay tilmaantay kaabayaasha cusub ay adeegsan doonaan cutubyada gaarka ciidamada Israa'iiliyiinta ay sameeyeen la dagaalanka diyaaradaha waxa goobta la keenay raadeero aad u xoogan iyo waliba dhaqdhaqaaqyo xoogan Masar waxay qudheeda ay tilmaantay inay si dhow la socoto dhaqdhaqaaqyada Israa'iiliyiintu ay ka sameynayaan xuduudda taas oo ay tilmaameen inay tahay mid aan la aqbali karin marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan Masar ayaa iyana sheegtay inay si dhow la socoto isbedel kasta oo cusub oo dhinaca Israa'iil iyo xuduudeeda gaar ahaan deegaanada ku yaala bariga dhexe ay ku wajahayaan warbaahinta Masar ayaa dhinaca kale tilmaantay in soo hadal qaatay walaaca laga qabo kororka joogitaanka militariga ee halkaasi xuduudda ay ku samaysanayaan ciidamada Israa'iiliyiinta sanadkii 1979 heshiis ayaa dhaxmaray Israa'iil iyo waliba dowladda Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar arrintan ayaa dib u soo celisay dood ku saabsan heshiiskii nabadda ee Masar iyo Israa'iil kaasoo qeexayeen ciidamada iyo hubka la ogol yahay deegaanada aan loo ogolayn baaliri deegaanada ku dhow xuduudda warbixinta Israa'iil ayaa sheegaysa in qodobada amniga ee heshiisku ay xadidayaan joogitaanka ciidamada in nooca hubka cusub lagu isticmaalo aagaga qaarkood Masar ayaa sida warbixintu tilmaantay walaac ka muujisay galitaanka gaadiid military hub culus iyo waliba dhaqdhaqaaq ay sameynayaan ciidamada Israa'iiliyiinta waxaana laga baqayaa dhibaatooyinku inay sii balaadhaan ugu dambeyntiina xilliga shambuurta NATO ay ku jiraan Kable Yurub iyagoo ka baqanaya in dowladda Ruushku ay tijaabo ku bilowdo dagaal dhinacyadaasi haddana waxaa soo baxaya madaxweyne Putin inuu ka qayb galay dhoolatus ciidamadiisu ay ku sameynayaan badweynta Pacifiga tan waxay muujinaysaa inay tahay diyaar garow dagaal oo dowladda Ruushku ay doonayso in ay ku qaado qaybo kamid ah NATO haddiise NATO ay u muuqatay in lagu dhiirado tani waxay ka dhigan tahay nidaamkii caalamiga ah ee awoodii reer galbeedku in ay hoos u dhacayso madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qayb galay wajigii ugu dambeeyay ee dowlatus military oo ay sameeyeen ciidamada maraakiibta badweynta Pacifiga ee Ruushka Putin ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leeyihiin dowlatusyada noocan isagoo sheegay in ay door muhiim ah ka qaadanayaan ilaalinta danaha Ruushka ee gobolka Aasiya iyo Pacifiga dowlatuskan ayaa qayb ka ah howlgalka tababarka ciidamada badda ee Ruushka iyadoo lagu qiimeynayo awoodda ciidamada iyo diyaar garowga ku aadan xaaladaha kala duwan ee amni ee ka soconaya gobolkaasi Moscow ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kordhisay dhaqdhaqaaqa military oo ay ku sameynayaan bariga fog iyo badweynta Pacifiga xilli ay soo xoojinayaan tartanka istiraatiijiga iyo xiisadda ka jirta gobolkaasi Putin ayaa sheegay in joogitaanka iyo diyaar garowga ciidamada Ruushka ee gobolku ay ka mid yihiin difaaca danaha qaranka iyo sugidda amniga Ruushka ee Aasiya Pacifiga diyaartayna la socotay sidaad haddaba la socotaan dowladda Masar xuduudoodii waa la soo kubaareeyay ujeedaduna waxay tahay in Israa'iil ay garaacdo dalkaasi iyadoo laga baqayo dowladda Masar inay ku biirto isbahaysiga Maka halka dhinaca Sacuudigana uu warqad codsi ah u diray xuutiga uu leeyahay fadlan iga joojiya dagaalka waan isdhiibay haddaba arrimahan marka la fasiro maxay kula muuqataa iyadoo waliba maanta dowladda Iran ay diiday soo jeedin 6 maalin oo heshiis nabadeed lagu qaadan lahaa mar kale oo xabad joojina fadlan magacaada meesha joogto ku bilow aragtidaada hoos noogu qor haddii aad halkan la soo gaartay muuqaalka la garee samarkaana YouTube-ka subscribe sar haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana page-ka ku biir oo muuqaalka like sar aad baad u mahadsantiin